بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي كسر دوادا كلية عافماتك يتبارك ريفت فالي وكورس كيني epidemiology عن بايستاتيكس وإحنا بلعبنا مانتها موديول 3 قيبتي لاباد epidemiology وين صورنا من بايستاتيكس كين بلعبنا مركوا chapter 7 chapter كسر دوادا لازم كنا chapter واحد one chapter ولا لازم بهيد أما one chapter one lecture بهيد lecture كنا number 7 أما lesson number 7 يعني قاعد قاعد لا عليه لسه السينية waxyaabaha chapterka aynu ku qaadan doono objectiveska chapterka ama contentska chapterkan uu leeyahay chapterkan markuu dhamaado by the end of this lecture markuu dhamaystirmo students should be able to waxay awood u yeelan doonaan qodobada waxyaabaha soo socday awood u yeelan doonaan kow inay define gareeyaan statistics and by statisticsna inaad gaar u qeexi karto by statisticsna inaad qeexi karto waa ujeedada koobaad ujeedada labaad explain as sharxi kasta what is meant by descriptive statistics labada qaybood ee waaweyn ee loo qeybiyo statistics inaad kala saari karto descriptive statistics iyo inferential statistics labadaas inaad mid kastaba explain garay karto aad sharxi karto qodobka saddexaad distinguish inaad kala saari karto qualitative variable and quantitative variable variableska laba loo qeybiyo qaar qualitative ah iyo qaar quantitative ah qaar description iyo sharaxaad ku salaysan oo qualitative la yiraahdo iyo qaar quantitative oo tiro iyo number ku salaysan qaarna marka waa variable qaarna waa numerical waan kala saari doonaa sidoo kale distinguish inaynu kala saarno waxa loo yaqaan levels ama scales of measurement distinguish ama inaynu kala saarno nominal ordinal interval and ratio levels of measurement afartan nooc ee measurementka ah inaynu kala saari karno kala aqoonsan karno qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa waa maxay roolka biostaticska uu ku leeyahay modern medicine waa maxay muhiimadiisa roolkiisa waayahay waxaan ugu horeysiin doonaa statistics kan qeexi doonaa marka koobaad statistics isla garanaynaa inay tahay laan ka mid ah xisaabta Soomaaliga tiro koob ku noqonayso xog la soo ururinayo interpretation lagu sameynayo la kaydinayo la analyze gareynayo kadibna presentation lagu sameynayo la soo bandhigayo inay tahay si fiican u garanaynaa marka statisticsku is a branch or line of mathematics ka mid ah xisaabta concerned with taasoo khusaysa collection soo ururinta classification ablaablaynta analysis taxliilinta iyo kala hufidda iyo xisaabgelinta and interpretation iyo turjumaadda of numerical facts xaqiiqooyin tirooyin ku salaysan or data ama xog numerical data ama information presented in numerical form xog loo soo bandhigay qaab number ama tiro ah ayuu noqonaya statistics marka waa branchga ballaaran ee xisaabta ka mid ah tabadan waa wax practical ah waa wax practical statistics sidoo kale waxana waa iyadoo meesuu wadnaba qeexitaan kale ku qeexi karna is a field waa qayb aqoonta ka mid ah mathematics iyo xisaabta ka mid ah which examines taasoo baadhada ka howlgasha the collection soo ururinta organizing isku habeynta summarization soo koobidda and analysis iyo taxliilinta iyo kala haadinta data xog and draws waxaanay sawirtaa ama soo saartaa inferences waxa weeyaan inay samayso gebagebo ku salaysan xaqiiq or conclusion is based on reasons ama evidences regarding loo tixgelinayo the data in xog for a population ay iska leedahay bulsho meel ama cidda la doonayay in studyga lagu sameeyo through observation of a sample iyadoo dheendheen lagu sameynayo oo laga soo qaadanayo muunad marka inta badan inferenceska ama inferential statistics waxa uu ka hadlaa populationka oo dhan marka la doonayo xogta lasoo lagama soo ururinayo qayb ka mid ama muunad ka mid ah laga soo qaadanayo muunada laga soo qaato xogta laga helo ama informationka laga helo ayaa lagu generalization lagu sameynaya bulshada oo dhan inta badan waa more complex baa la yidhahdaa inferential statistics marka loo eego descriptive inta badan population oo dhan buu ka hadlaa laakiin inta badan wuxuu ka hadlaa population kooban buu ka hadlaa population marka large noqdo ballaadho inferential statistics la isticmaalaa inkaasi statisticsku ahaa by statistics sawir waa qaybta iminka waa dee waxay ku kala duwan yihiin kaliya in biome baa timi biome waa maxay kaasa life bay kaasa ama living things bay kaasa ama wax nool bay kaasa intaan soo sheegnay statisticskii collectionkii recordingkii interpretationkii summarizationkii organizationkii daatada lagu sameynayay oo lagu base gareynayo iminka
life ama noloshii ama living things waxyaabihii noolaa unbuu noqonaya biostatistics marka biomass waa development oo horumarinta lagu sameeyo application iyo in la hawlgeliyo statistical techniques xirfadaha statistics ku isticmaalo in la hawlgeliyo laga shaqaysiiyo to scientific research oo laga dhigo cilmi baadhis cilmiyeysan scientific ah relating taasoo xidhiidha life nolosha tusaalahan humankii oo kale plantigii oo kale animalkii oo kale waxyaabahaas oo dhan baa lagu salayn karaa marka biostaticsku qaybihii kala duwanaa ee cilmiga iyo aqoonta caafimaadka wuxuu diiradda saaraya epidemiologygii ka hadlayaa pharmacology wuu ka hadlayaa medicinekii wuu ka hadlayaa anatomy physiology wuu ka hadlayaa microbiology wuu ka hadlayaa dhammaan etc daas oo loo soo gabay etc waa wixii lamid ah intaa dheer markaa dhammaan wuu soo gelaya wadaad u fiirso inta badan dadka waxaan health science cilmiga health science ka dhigto oo dhan way dhigtaan maadaama biostatics gaarka horas ahaan bay dhigtaan biostatics marka dhammaan wuu soo hoosgelaya halkan waxaan ka ogi doonaa tabeska statistics waa nigi lahayn distinguish between descriptive statistics and inferential statistics labada inay kala saaro marka descriptive inferentialku way kala ballaaran yihiin inferentialka ballaaran inferentialka more complex ah uu ka kakan oo inta badan descriptive waxa uu khuseeyaa inuu describe gareeyo ama sharaxo target populationka oo dhan ayuu describe gareynaya kana target populationkii baa sample laga soo qaadanaya oo samplekaasa lagu sameynaya marka inferences lagu sameynaya oo la taxliilinaya la baaraya hadhowna iyadoo evidences lagu base garanayo hadhowna laga soo saaraya results oo kan inta badanna comparison buu sameeyaa so prediction ku sameynaya marka probability baa la isticmaalaa so prediction ku sameynaya waxyaabaha outcomeska future soo baxaya kana wuxuu sameeyaa organization iyo collection iyo analyze iyo presentation datada ayuu ku sameeyaa waxay ku kala duwan yihiin oo kale in combinal researchka probability scores baa lagu soo saaraa halka combinal resultska lagu tusayo charts tables graphs waxyaabahaas chances baa lagu tusayaa table oo shaxana lagu tusayaa graphs baa lagu tusayaa way kan waxyaabo isticmaalo toolska measurementka isticmaala central tendency-ga kamid ah meanka iyo modka iyo mediumka iyo spread of data oo standard deviation-ki range-gi iyo waxyaabaha noqonaya halka kan uu ka isticmaalaya hypothesis iyo variance-ka oo analyze garanaya iyo covariance-ki waxyaabahaas isticmaalaya marka labada aad bay kala duwan marka kan waa maxay descriptive waa methods of collecting oo la soo organization waa la habaynaya kooxayn baa laga dholo kooxaynaya present oo la soo bandhigaya analyzing data xogtiina taxliilin baa lagu sameeyaa xisaab baa la gelinaya kana waa science waa cilmi iyo aqoon of making inferences ila sameeya inferences waxyaabo evidences about ku saabsan population based on sample information iyadoo waxyaabo xogta hadhow conclusionka laga sameynaya la soo gabagabeynaya la taxliilinaya ee population ku saabsan based waxay ku saleysan sample information xog muunad ah oo populationka laga soo qaatay waxyaabahan baleen haddaba descriptive iyo inferential u kala saarayna imika kan qaybta hore waxaan nidhi waa descriptive si fiican u fahmaysaa qaybtan yar columnada yaran A B C dan iyo labadan column halkan waxaan waa inferential tusaale ahaan dadkaynu bool baynu dhigo boolka waa taqaan inta badan dadka marka codka laga qaaday galay page iska Facebook iyo meelahaas ku aragteen iyo boolkan oo lagu codeynaya ka percentage bu soo dhigaa intaas waxay u codeeyeen in hebel guuleysinta kale waxa hebel guuleys marka bulshadii baa loo bandhigay qayb kamid ah looma bandhigin dadna waa bulshadu wada eegayaan dadna waxba ka soo baxaya marka info track ball baa la sameeyay in codeyn baa la sameeyay phone waxa la helay dad 83% boqolkiiba 3% of the people dadka kamid dadka oo dhan baa loo bandhigay marka in a survey new ay garanayeen which country won dalka ku guuleystay the gold medal muxuu ahaayay abaalmarinta dahabka ahayd in minis hockey baasha la yiraahdo ulaha lagu ciyaaro 2012 ee dunida loo dhigay ee ragga gaar baa ugu tartama dumarkana gaar marka abaalmarintii la bixinayay cidii ku guuleysatay ayaa loo codeeyay marka waxa loo codeeyay dadka 3% ay garanayeen 7% kalena ay garan waayeen dadka dhan maadaama loo bandhigay maxay noqotay descriptive laakiin waxa hadii qayb kamid ah laga soo qaato wuxuu noqonayaa inferential waa sample ba laga soo qaadan sahan company ba wuxuu soo qaatay waxyaabihii invoices-ku soo sheegayo saxnimada invoices-kiisa
company-ga oo dhan ayuu qayb ka mid ah soo qaato baaray dhammaan ma wada baaray waa company weyn wax invoices oo dhan lama wada eegi karayo laakiin qayb ka mid ah soo qaaday qaybta haddii la isla eegana dee time badan bay qaadanaysaa iyo kas badan iyo waxyaaba badan bay qaadanaysaa marka si taa looga hortago waxay sameeyeen sample bay kasoo qaateen sample-kii ay kasoo qaateen bay markaa ku salanayeen inta kale marka maadaama sample lasoo qaatay muxuu noqonaya inferential tusaale ahaan like the accounting department qaybta xisaabaadka of a vim ee shirkad will select waxay dooran doontaa a sample of invoiceska waxyaabihii ay alaabtii iibiyeen ay munad kasoo qaadeen to check say u hubiyaan for accuracy saxnimada of all the invoices of the company dhammaan invoiceska company-gu leeyahay saxnimadiisa u hubiyaan ayaa waxay sameeyeen qayb ka mid ah ay kasoo qaateen in kan kale asaguna waa inferential inooga muuqato halkan isagana maxaa la sameeyey company khamriga sameeya ayaa wuxuu doonayaa khamriga inuu iibgeeyo oo khamrigii la diyaariyo deedna mid ka mid ah winekiiba laga soo qaatay drop serial oo la taskareeyo si markaa loogu go-aan qaato inuu soconayo dabeedna waxay ka dhigan tahay markaa wineka oo dhan lama wada eegin qayb ka mid ah la eegay qaybtaa la eegay waxay ka turjumaysaa dhammaan winkii kale oo dhan deedna lagu generalize gareynaya wine testers sib ayaa kasoo qaatay dadkii wine testerska tijaabinayay historieska eegayay dhadhaminayay hubinayay dhadhankiisa sib ayaa waxay kasoo qaatay few drops of wine dhibco yar oo waana to make a decision say uga soo qaataan go-aan with respect iyagoo tixgelinaya to all the wine dhammaan wineka oo dhan bay u tixgelinaya xabad ayar waiting winekaasoo ama khamrigaas sugayo to be released for sale in loo sii daayo in la iibgeeyo marka wax filayna si fiican ugu fahanteen inferentialki iyo descriptiveki labadan qaybood halkan waxaan ka ogi doonaa variableku waa doorsoome soomaali marka waa waxa inta badan isbedbedelaya la isticmaalayo marka researchka la sameynayo ama biostaticska la howlgelinayo oo wax isbedbedelku ku imanayo marka kaas le waa variable marka variableski oo noqonaya qaar qualitative ah iyo qaar quantitative ah qaar ku salaysan description qualitative waxay ku salaysan yihiin description iyo sharaxaad qaarna waxay ku salaysan yihiin tiro numerical hadda characteristic waa astaan ama waa dabeecad that varies from person to person taasoo qof ilaa qof iska bedelaysa or from situation to situation ama xaalad ilaa xaalad wax isbedbedelay weeyaan qof ilaa qof kale uu kaga duwan yahay ama insana xaalad kale kaga duwanta dadku dhererka way ku kala duwan yihiin dhumucda way ku kala duwan yihiin ageka way ku kala duwan yihiin waxaa dabeecadaha iyo characteriska way ku kala duwan waxaas variable bay noqonaya for example tusaale halkan ayaan ku eegaynaa bal wayn tusaale eegna plateletka ama saxanyarooyinka ama xinjirooyinka muxuu ahaye blood cellska ku jira saddex qaybood blood cellska loo qeeyo whiteka iyo redka iyo plateletska kuwa xinjireyaasha saxanyarooyinka loo yaqaan dhiigga xinjireya marka platelet count in la tiriyo plateletska ama ku jira in different persons dad kala duwan ku jira in la tiriyo is variable way kala duwan adigoo faaraxa iyo adigoo faaduma ah haddii plateletskiina ima kala taskariyo live kala geeyo tiradina way kala duwanaanaysa haddii loo baahnaa iyo inta qof walba ku jirta way kala duwanaanaysa marka laakiin waxa lagu yidhi but laakiin number of eyes inta indho oo number of fingers ama inta fara ah is not a variable ma noqonaya variable sanam faaraxii faaduma waxay ku kala duwan yihiin platelets la tiriyo laakiin faaraxii faaduma dee faaraxna laba indhood buu leeyahay faaduma laba indhood bay leedahay sidoo kale faraha gacantana shan buu ku leeyahay bidixna shan buu ku leeyahay toban bay noqonayaan lugahana toban buu ku leeyahay faadumana saas le wixii kala disability iyo meesha yimaada waa gaar laakiin sida normalka hadda marka ay variable ma waa laga sameeyay ay ku xisbedelay waa platelet count ama agekii ama sizekii jirka waxa isbedelay dheer waxa jira two main types of variable laba nooc variables qualitative variable iyo quantitative variable labadana waxaan sheegi doonaa in qualitative variable-ka iyo quantitative-ka midna waxa weeye numerical ba loo qoraa nidhi hore soo sheegnay midna waxa loo qoraa variable ona lagu qoraya ama area loo isticmaalay marka qualitative oo kala isaga looma qorayo numerical laakiin quantitative waxa loo qoraya numerical quantitative quality baa laga hadlaya ayaa laga cabiraya that's not given numerically and number ha loo qorayo tusaale place of place halka ku dhalato kale hargeysa la qoraya ama muqdisho la qoraya ama jigjiga la qoraya ama baydhabo la qoraya marka magaalada la qorayo tiro lagu qori maayo tusaale ahaan genderkii ama sexkii inaad female tahay ama male tahay loo maayo female kuna wuxuu ka kooban yahay
muxuu ahaye 6 xaraf ee 6 la qoro meelkan wuxuu ka kooban yahay 4 xaraf ee 4 la qoro lama oranayo 5 food nooc cuntada jecesho cuntadiisana inta magac baa la qoray level of education heerka waxbarasho primary secondary elementary intermediate university level la qoray etc iyo wixii lamid ah marka waxay u qormayaan qualitative variables midna quantitative noqonaya wixii waxa loo qorayaa number ahaan marka data xogtii is given numerically waxa loo qorayaa tiro ahaan baa loo qorayaa tiro ahaan marka loo qorayo laba qayb baa loo qaybinaya marka rooyinkii waa qaar iyagu muxuu ahaye tirooyin cayiman ah ama inta badan whole numbers bay noqonayaan waa tirooyin tirsiimo caadi ah tirooyinka qaarkoodna waxay galaan decimal buu gelaya marka waxaad u decimal gelayana waxa la yidhahdaa continuous hadduu aqbalaya haddana decimal aqbalayna waxa la yidhahdaa waa variable waaya marka discrete labaynu qaybinaynaa quantitativekii discrete iyo continuous discrete waxaan nidhi waxaan aqbalaynin decimalka aan aqbalayn ama tirada jajabka aan aqbalayn wixii tirada decimal ama dhibic toban la gelayso ama jajab aqbalayana waxaa la yidhahdaa waa continuous value bal aan kala eegno waa discrete value take specific numeric value wuxuu qaataa numeric value specific ah cayiman 5 6 9 15 2 or number of possible values ama wuxuu qaadanayaa tiro ah qiimayaashii macquulka ahaa for example tusaale parity for a woman gabadh intay dhashay gabadh haddana wuxuu dhalay 0 buu noqonayaa hadday mid dhashay mid buu noqonayaa haddii laba dhashay 2 saddex hadday dhashay 4 baa la saas odhanaya laakiin ma soo gelaya halkaas tiro kala dhiman ma soo gelayso tusaale haddii gabadha 3 ciyaal haysato midna ay urka ku sido hadday tiraa ka waran iyadoo bilaha 9 bilood eegayso 9 bilood 1 ka dhigaysa hadday tiraa ka waran oo bilihii xisaabiso tiraado waxaan leeyahay 3 ciyaal iyo 0.4 yani 0.4 ka ay ka xisaabiso inta bilood urka ku jiray ama 0.9 ama 0.7 ay tiraado macquul ma noqonaysa ma noqonaysa waxa la xisaabinayaa inta parity-ga imsa dhashay 3 baa dhashay ka yimaado markuu yimaado baa lagu daraya afar laga dhigay marka magac aqbalayo so number of patients tirada bukaanka bukaankii waxay noqonayaan dad bay noqonayaan oo hal bukaan 2 bukaan 3 bukaan 4 bukaan more than 4 bukaan iyo barbaan haya markaasi wax ma aqbalayaba marka noocaas oo leeyahay discrete laakiin da'daadu way aqbalaysaa oo sanad markaad jirto sanad iyo 2 bilood markaad jirto waxaad oran kartaa waxaan jiraa 1.2 years ilaa 2 bilood pointiga gelayaano marka continuous saas uu noqonaya discrete-kuna waa ka aan aqbalayn point halkaan si fiican u fahanteen ma filay marka continuous variable a variable waa variable that can theoretically have infinite number waa ka marka laga hadlayo xagga tiradiisa ama tirsiimadiisa haysta infinite number waxa weeye tiro undermining haysta of possible values kaasoo ah qiimayaashii possible-ka ahaa ama macquulka within a short range iyadoo la eegayo range aad u yar oo ahaan haddii la dhaho 1 iyo 2 maxaa u dhexeeya 1 iyo 2 maxaa u dhexeeya haddii lagu dhaahdo dee tiro aad u infinite maba dhamayn kartid 1.0000000 kaasaan kaaba dhamaanaynba 1.001 1.002 1.003 ta haddaad wado kaaba dhamaan mayso marka infinite buu noqonaya age-koo kale is a continuous wax continuous within 8 and 12 inta iminka 8 and 12 u dhaxaysa waa continuous way soconaysaa the 8.1 8.2 8.3 saasaad ku wadaysa it can be waxay noqon kartaa 8.17 10.874 oo wax continuous uu soconaya forecast hadda rooyin badan baa kasii damaynaya 9.756 years marka kuwan waxaad u bedeli kartaa bilo sanado maalmo ayaad u bedeli kartaa waayo age baa lagu age can be measured waxa lagu cabiri karaa in terms of days maalmo lagu cabiri karaa hour saacada lagu cabiri karaa and minutes iyo daqiiqado although inkastoo practically there is no need to do this inkastoo aan practical aan loo baahnayn kuwan laakiin haddana markaan ka hadlayno continuous-ka qofku inuu sanad iyo bilaan jiraa uu yidhaahdo pointida yaraan wax minaa sameynaya marka caadiga qofka aad u sheegayso qof haddaad tiraa 9.756 years baan jiraa waxa yahay qofku inuu kala yaabo maxaad u jeedaa marka waxa laga yaabaa inaad adigu qiyaasto tiraana waxaan jiraa 9 sano inta soo bilowdo laakiin marka laga hadlayo statistics marka la joogo micno ayuu sameynaya
way blood pressure ku kala sugan is continuous variable but laakiin measured in integers of convenience integers baa la isticmaalayaa ama abunyaal baa la isticmaalayaa oo dee laba tiro blood pressure marka la cabiriyo diastolic iyo systolic loo isticmaalaya lakin isaguna continuous buu noqonaya tirooyinkaasi hadaad tirahdo imika 80 iyo 90 inta udhexeysa wax tiro badan bay noqonaysa marka cabirka lagu qabto haddii la israa jajabiya pointyo badan baa soo gelaya halka lakin waxa lagu yiri parity-gu xaggan is not a continuous variable ma noqon karo parity inta gabadha ciyaal because there is no possibility it being like sababta baa lagu yiri ma jirto possibility ama wax suurtagalnimo of it being inaad tiraahdo 2.75 children baan haystaa or 1.6 children ayaan haystaa inay gabadha tiraahdo ama aan dhalay macquul ma